wararkii ugu waaweynaa sanadka 2016 sii dhamaanay Djibouti lagu xasuustay waxa ka mid ahay doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii August ee sanadka 2016 doorashadaas oo ka qayb qaadanayeen 6 musharax waa markii ugu horeysay ee doorashada madaxtinimada Jamhuuriyadda Djibouti ay u tartamaan 6 musharax oo dhamaantood u dhashay wadanka Jamhuuriyadda Djibouti iyadoo doorashadaasi uu musharax walba uu si xor xalaal u sameeyay doorashadiisa wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti ayaa u dejisay qorshe ay kula hadlayeen taageerayaashooda musharaxiinta oo ku aadayeen gobolada dalka gudihiisa iyo magaalada caasimadda iyo degmooyinka kadib 2 toddobaad oo socday ololaha doorashada waxaa la soo gabagabeeyay ololihii doorashada 6 bishii August halka la fadhiyay maalintii toddobaad isla bishaasi subaxii Jimcihii 8 August ayaa loo dareeray 6 subaxnimo goobaha codbixinta doorashada oo ay dadku codkooda ka dhiibanayeen balse waxaa la soo gabagabeeyay doorashadaasi 6 fiidnimo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa martay in lagu daro hal saaco si codbixinta ay u sii socoto waxaa la soo xiray sanduuqyada codbixinta 7 fiidnimo ee habeenkii Jimcihii 8 bishii Agosto kadib waxaa la gudagalay tirintii codadka iyo sidii loo tirin lahaa wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Xasan Cumar Maxamed ayaa si rasmi ugu dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimada kadib markii la soo gabagabeeyay tirintii codadka habeen dambe waqtigii wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Djibouti Xasan Cumar Maxamed ayaa si rasmi ugu dhawaaqay natiijada doorashada madaxtinimada kadib markii la soo gabagabeeyay tirintii codadka waqti dambe isla habeenkii 8 bishii Agosto wasiirku waxa uu sheegay in doorashadii ka dhacday wadanka ay ku guuleystay madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada EMB oo helay 68.86 saasna uu ku noqday madaxweynaha markale la doortay ee dalka ee si xor ah loo soo doortay waxa kaalinta labaad garay Umar Xilmi Khayr oo ka tirsan xisbiga USN waxaana uu helay 7.23 halka Maxamed Daawud Tixim oo ahaa isna USN oo laba garab kala jabtay oo helay 2.28 Maxamed Muuse Cali oo ahaa musharax madax banaan waxa uu helay 1.3 Xasan Idris Axmed oo isagana ahaa musharax madax banaan waxa uu helay 1.9 Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo ahaa musharax madax banaan waxa uu helay 1.97 doorashadii madaxtinimada degareey ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa lagu soo doortay golaha wasiirada cusub 12 bishii shanaad isla sanadkan 2016 ee sii dhamaanaya wasiirada la soo doortay ayaa waxa ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Abduqaadir Kaamil Maxamed iyo xubnaha xukuumadda ay ka kooban tahay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Abduqaadir Kaamil Maxamed wasiirka garsoorka iyo arrimaha jeelasha qaabilsan xuquuqliisaanka Mudane Muumin Axmed Sheekh wasiirka madaxtooyada u qaabilsan maalgashiga Cali Geelle Abubakar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah afeenka xukuumadda Mudane Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadeynta Mudane Ilyas Muuse Dawaale wasiirka arrimaha gudaha Mudane Xasan Cumar Maxamed wasiirka miisaaniyadda Boode Axmed Roble wasiirka gaashaandhigga qaabilsan xiriirka baarlamaanka Mudane Cali Xasan Bahdoon wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Mudane Maxamed Abduqaadir Muuse Xilim wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cokiye wasiirka waxbarashada iyo tababarka xirfadaha Mustafa Maxamed Maxamuud wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Mudane Nabiil Maxamed Axmed wasiirka warfaafinta qaabilsan boosaha iyo warisgaarsiinta Mudane Cabdi Yuusuf Suge wasiirka beeraha iyo biyaha kalluumaysiga iyo taranka xoolaha Mudane Maxamed Axmed Cawaale wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo awqaafta Mudane Muumin Xasan Barre wasiirka tamarta qaabilsan kheyraadka dabiiciga Mudane Yaasiin Xuseen Buux wasiirka shaqada qaabilsan dib u habeynta maamulka Mudane Xasan Idris Sabriye wasiirka guryeynta magaaleynta iyo arrimaha deegaanka Mudane Muuse Maxamed Axmed wasiirada haweenka iyo qoyska Muumina Xamed Xasan wasiiru dowlaha wasaaradda guryeynta iyo magaaleynta iyo deegaanka qaabilsan hoyga Aamina Cabdi Aadan wasiiru dowlaha dhaqaalaha iyo maaliyadda u qaabilsan ganacsiga farshaxanka iyo shirkadaha yaryar ee dalxiiska Mudane Xasan Buux Ibrahim wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha qaabilsan baarlamaanka maamulka Xamadow Maxamed Aramis xogay dowladeedka arrimaha bulshada Muumina Cusmaan Aadan xogay dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha Xasan Maxamed Kaamil